mahadsan Jamaal Dr. Negeri Lancho wasiirka arrimaha warbaahinta ee dawladda Itoobiya ayaa waraysi uu siiyay qaybta afka Amhariga ee idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay u soo gacan gelisay Cabdikariim Sheekh Muuse oo ka tirsanaa ururka ONLF. ይሄ የኦብኔግ ከፍተኛ አመራር ነው። የተሰማራበት ተግባር ያው ከዚህ በፊትም ይገለጽ እንደነበረ የኦብኔግ ከፍተኛ waxaan ku xaqiijinayaa in Itoobiya loo soo gudbiyay sargaalka ONLF ka tirsan waxaana soo gudbintaasi ay ku dhacday heshiis nagala dhaxeeya dawladda Soomaaliya. Mas'uulkan wuxuu ka tirsan yahay ururka ONLF oo ah urur argagixisa. ururka ONLF ayaa sheegay in Cabdikariim Sheekh Muuse toddobaadkii hore lagu qabtay magaalada Gaalkacyo kadibna loo gudbiyay Muqdisho. Haddaan hirmoobo ka tirsan ONLF ayaa laanta af Soomaaliga ee VOA-da uga warramay sida ninka loo qabtay. 23 bisha ayaa Cabdikariim Sheekh Muuse laga qabtay isagoo markaa uu soo galay magaalada Gaalkacyo hotel ku yaala saacado yar gudahood baa lagu qabtay. laba maalin markuu ku xidhnaana waxaa la soo dhacdhiciyay magaalada Muqdisho. waxaa qabtay ciidanka nabad sugidda Galmudug kadibna nabad sugidda Soomaaliya ee NISA la yiraahdo yaa kala soo wareegtay oo si afduuba xamar ku keentay saldhiga iyada ku leedahay madaxtooyada agteeda ay keeneen kadibna daraad bay wareejiyeen. waxaa la geeyey Debrecen baa laga dejiyey marka aagan xeryahan u dhexeeya Debrecen iyo Addis Ababa halkaas qiyaastii raadkiis u dambeysay lagu sheegay. mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya oo ay ku jiraan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo taliyaha nabad sugidda ayaa xalintu wax laga weydiiyay sargaalka ONLF ee loo gacan geliyay dawladda Itoobiya sidan ayna uga jawaabeen waxaana hadalka ku hormaray taliyaha nabad sugidda. arrinka la xiriira sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. anigoo afwaaya dawladda waxaan jeclaa madaxda qaranka waxaa la yidhahdaa hay-adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naaftuumay waxaan isagaa noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa arrimihi amniga isaga kaaga jawaabay. si kasta ha noqotee sargaalkan ONLF ee dawladda Soomaaliya ay u gacan gelisay Itoobiya ayaa buuq iyo hadalhayn badan dhaliyay waxaana dad badan oo qaarkood ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya ay cambaarayeen tallaabadani oo ay ku tilmaameen mid aan la aqbali karin. dawladda Soomaaliya ayaa laga dhul sugayaa in si rasmi ah uga hadasho sababta iyo ujeedada ka dambeysa in sarkaalka ka tirsan ONLF Itoobiya loo gacan geliyo.